kulankan oo odayaashan iyo waxgaradkan ku yeesheen hoyga beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil beeldaaje xaaji cabdulaahi ee magaalada boosaaso ayay baaq ugu direen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyaga oo ka codsaday inuu xorriyadiisa dib ugu soo celiyo boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow oo kamid ah isimada dhaqanka ee Soomaaliland kaas oo ku xiran magaalada Hargeysa ee Soomaaliland odayaashan iyo waxgaradkan ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland in la ilaaliyo isimada dhaqanka isla markaana xorriyadiisa la siiyo boqor Cismaan boqor Maxamuud Buurmadow kaas oo dhawaan kaga qayb galay magaalada Carmo ee gobolka Bari ee Puntland xafladda lagu caleema saarayay beeldaaje maxamed beeldaaje Ismaaciil waxaan rabnaa in aan u sheegno ka cadeyno haddaan nahay isimada Puntland inaanu ka xunnahay marka hore xariga loo geystay boqor Cismaan boqor Maxamuud Buurmadow oo ay xireen maamulka dawladda Soomaaliland aad iyo aad baa arrintaas uga xunnahay haddaan nahay dhaqanka Puntland boqor Buurmadow marka raggii halkaa yimid oo lagu marti qaaday uu ku jiray uu ka hadlay meesha annaguna goob joog baanu ahayn waxa uu yidhina waanu ognahay cid uu gafayna ma jirto cid uu caay ma jirto cid uu aflagaadayna ma jirto wax la qoonsado oo uu dambaabay oo aan isiraahno waa dambi ama qolay ku tahay meel ka dhac ma aanu dhihin waxaan soo gaadhay boqor Buurmadow in la yidhi Soomaaliland buu aflagaadeeyay oo la xidhay marka sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa oo aan kala har lahayn in la sii daayo boqorka oo xorriyadiisa la siiyo xataa qofkii xataa dawladda ka tirsan oo munaasibka ah xabsiga lama geey jiro gurigiisa lagu xir jiray xataa markii laakiin ismadu kuma jiraanba in xabsiba la geeyo dhaqankaba kuma jiro madaxda Soomaaliland oo sidii ismadii iga horeeyay u sheegeen oo madaxweyne Muuse ugu horeeyo waxaanu ka codsanaynaa inuu bilaa shuruud ku sii daayo boqorku uma qalmo xarig uma qalmo inuu inta xabsi ku jiro uma qalmo in hadba maxkamad la soo taago ismadu xurmay leeyihiin waxaanuna aaminsanahay annagu reer Puntland sidii laga sheekeeyay isimada ayaa ugu xurmo badan dadka jooga Soomaaliland waxaan ugu daydeen meeshii madaxweynaha joogay oo dawladdu joogtay oo shacabku joogeen hadalka aan ninkaas kaga qanacnay oo ku faaninay isaguna waa inuu sidoo kale u qaataa barka dika nabadid buu noqonayaa maamulkaas hadii nin nabad ka hadlay ay xiraan annaguna aan taageeray oo ogolaanay shacabka Soomaaliland aan u sheegayna runta ay lafsigoodu social media waxyaabaha qaldan oo ay boqorka marmarinayaan qaarkood inay ka tanaasulaan oo dhaqanku waxyaabo badan oo waxa way mustaxiilka baa jira in sharaftooda iyo cirdigooda loo gafo maaha boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow oo kamid ah dhaqanka ummadda Soomaaliyeed kaasoo ka soo qayb galay xafladda caleema saarka 15 bishii Afraad lagu qabtay magaalada Carmo oo muhiimadu ahayd inuu ka soo qayb qaato isagoo matalaya isimada guud ee Soomaaliyeed hase yeeshee mataqaana hadda xabsi ku jiro taasna mataqaana waxa leenahay in la sii daayo buu mudan yahay hadii Allah idmo salaatu wasalaam ala rasuulillah nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam marka hore isimada dhaqanka xafladan ka soo qayb galay dhamaantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sida saxaafadda salaanka bacdi kulankan sida loo sheegay beeldaaje maxamed beeldaaje Ismaaciil ayaa sababay waa uga mahadcelinaynaa beeldaajaha runtii xafladan uu qabtay tan labaad waxa uu helisay oo ismadu ay kaga hadleen arinta boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow iyo arinta fatahaada uriyada iyo dhibaatooyinka roobabku geysteen labadaba runtii labaduba arrimo muhiim ah weeye ismadii iga horeeyay baana ka hadlay oo runtii hadda hadal badan oo ay ka tageen ma jiro tan koowaad boqorku hadda waxa lagu xidhay anagu maba garan xafladii uu ka soo qayb galay beeldaajaha oo lagu casuumeynaa goobjoog baan ka ahayn waxa uu boqorku ka hadlayna oo kaliya waxay ahayd nabadgeliyo arrin nabadgeliyo ahayd arrinta nabadgeliyaduna hoggaanka dhaqanka qodobka u weyn oo loo sameeyo loo doorto weeye arrinta nabadgelyadu
sida ismadii iga horreeyey sheegeenna dhaqanku xuduud ma leh boqorku hadda ka horba sida uu jaamac ka sanqariyey puntland gudaheeda buu nabadeeyey oo isaga kala dab qaaday oo shaqo ka qabtay badan ummadduna ay ka wada dheregsantahay sidaasana dhaqanku xuduud u lahayn arrinta uu ka hadlayna arrin nabadgeliyo halaysnabadgeliyo unbuu ka hadlay runtii waan la yaabnay boqorkii waa la xiray markii la yidhi yacni saxaafadda iyo wararka adduunku maanta meel walba waa isku hal magaalo kama duwana somalilan dee inay qof walba muxuu yidhi iyo xagee ka hadlay iyagaaba ku wareeraya gabar bay xireen baan maqlay xamar ka hadashay mid yurub buu ka hadlay mid wuxuu ka hadlayaa adduunka dabadiisa taas waxaan idin odhan lahaa isku kalsay waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib beeldaajaha ogasha noo dhigay oo kay isugu yeeray oo mahadiga celinayna waxaa kaleeto laga hadlay boqor buurmadow sababta weeye meesha haddeer maantay laysugu yimi weeye boqor buurmadow waxaa laga casumay puntland baa laga casumay boosaasaa laga casumay carmaa lagu casumay bishii afraad 15keedii bay ahayd shanta Soomaaliyeed Nairobi baa laga yimi Kismaayo laga yimi haddii alla ku xamar baa laga yimi Somaliland baa laga yimi kilka shanaad baa laga yimi ummadii Soomaaliyeed meel ay joogtaba wixii ism ay lahayd badankood waa la isu yimi in la isu yimaado oo maartay la soo booqdo oo la wada tashado oo wax la isweydiiyona wax balaayo ah ma aha isinka waxa la yiraahdaa sidiisaba shaqadiisu qofba shaqo leeyahay askariga iyo dhakhtarka niba shaqo leeyahay isimka shaqadiisu waxay tahay nabadgelyo inuu ka shaqeeyo wax kale siyaasad iyo hawlo kale iyo bada kale shaqulkiisu ma isinka shaqadiisu waxay tahay waa dhaqan waa inuu nabadgelyada dadkii doortay iyo meeshuu joogaba waa inuu nabadgelyo ka shaqeeyaa ismadii meesha isugu yimi 100 iyo adigu dhowr iyo 10 bay ahaayeen waxay ka shaqeynayeen waxa laga wada shaqeeyay laga wada hadlay nabadgelyada annagu boqorku markuu hadlaayay nin bay xigay wax shida ah oo Somaliland uu u geystay ama meel kale uu u geystay ama cid uu wax yeelay ama cid uu siyaasad wax ku yeelay ama aflagaadho wax ku yeelay ama wax kale ku yeelay ma jirin hadalkiisii markii ugu waxay ahayd nabadgelyada ahayd wuxuu yiri nabadgelyada sida iyo saas wax nabadgelyada ka shaqeynaya buu ka hadlay hadduu nabadgelyada ka hadlana wax kaleeto oo Puntland uu geystay ama Somaliland uu geystay ama cid kale uu geystay ma jirin wax qof lagu xiro iska daanin xasaanad leh oo boqora oo ummad dhan matala oo xasaanad leh oo odaya wax lagu xiro iska daayee nin caadi ah oo aan wax lagu xiro meesha ka badhicin waxaan marka Somaliland u sheegaynaa xukuumadeeda iyo madaxda maamusha boqorka sida u dhaqsiga badan u sii daaya boqorku meeshuu doono buu wax ka qaban karaa hadda waxana الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان اسمه شرفت لك سوق قبل كلنا كان مانتا أدب مهندسين سيد شرفت الله وسع جبتين جزاكم الله خير أنت كبعد وحي اللي لها قضية شوية هذا الكلام متقن واسوق كمان إما هرنا أو مهد نقه ورد يوفرنا الراعي يهدى الله يدمه مرة كواد مهمة كواد ماشي اللي شكمي دوحة ولا تشي يسارك طلبات وحوية متقن باقة على صوصار اللي سيدايو بقر عثمان أو محمود بورمدو oo kamida dhaqanka ummadda Soomaaliyeed kaasoo ka soo qayb galay xafladda calaamasaarka ee 15 bishii afraad lagu qabtay magaalada Carmo oo muhiimadu ahayd inuu ka soo qayb qaato isagoo matalaya ismada guud ee Soomaaliyeed
hase yeeshee mataqaanaa haddeer xabsi ku jiro taasna mataqaanaa waxaan leenahay in la sii daayo buu mudan yahay haddii aan laydmo sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa isin kasta oo kasoo qayb galay xafladdii meel kasta uu joogo iyagana mataqaanaa mahad gaaray leeyihiin dhammaan ismada reer somalilan waxaan ka codsanaynaa oon baaq u diraynaa inay ka qayb qaataan yacni si u sii deyn lahaayeen boqorka sidoo kale waxaan baaq u diraynaa sidoo kale mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan una gurmadaan fatahaadda ka dhacday deegaanada Soomaalidu ay degto sida Beledweyne iyo Kismaayo in loo gurmado walaalahood oo halkaasi saameyn ku yeeshay wabigii ku fatahaaday ee Beledweyne inta kaliya un baan leeyahay haddii alla idmo kulankan waa inoo xiraya insha Allah taala wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhawaan ay ahayd markii maxkamadda Hargeysa ay 5 sano oo xabsi ku xukuntay boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow kaas oo lagu eedeeyay inuu wax u dhimay qarannimada Soomaaliland Yusuf Cabdi Shire wararka telefishinka SBC Boosaaso